asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ramadaan kariim mar kale iyo kulanti wanaagsan kusoo dhawaada channelkayga baro caalamka. waa maxamed sayid. maanta runtii waxaan ku dulmari doonaa falogani mowduuc aada u muhiim ah, khaasatan mowduuca soo khuseeya ardada ka qalin jibiya jaamacadaha. waayo waxaan aragnaa sanad kastaba ilaa iyo dhowr kun arday ayaa soo qalin jibisa jaamacadaha. markay soo qalin jibiyaan wax qorsho ah ma lahan, oo wax istiraatiijiyad oo loogu talagalay ama dowladdu u samaysay oo lagu shaqaaleynayo ma jiraan. sidaa darteed waa marka qaabka vlogan uga soo hadla wuxuu yahay sidii ay ardadu u noqon lahaayeen kuwo iskood u shaqo abuurta halkii ay shaqo sugayaal ka noqon lahaayeen. waayo qofka marka uu xirfad soo barto, xirfad wuxuu u soo bartaa inuu ku shaqaysto. balse waxaa dhacda ardada marka ay kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha, xirfadana soo bartaan, haddana shaqo sugayaal ayay noqdaan oo waxay raadiyaan shaqooyin. maalin kasta waxay wataan rasmiyadooda, xafiisyada ayay wareegaan, shaqay raadiyaan. qofka xirfadna wuu yaqaanaa. marka vlogani waxaan ku faahfaahin doonaa qofka soo qalin jibiyey, xirfadna soo bartay, sida uu xirfadiisa shaqo ugu abuuran karo, ugu shaqaysan karo, dhalinyarada kalena uu shaqaaleysiin karo, isaga iskiis u noqon kara. waa shaqo abuure. mar kale iyo kulanti wanaagsan kusoo dhawaada channelkayga baro caalamka. haddaadan naga mid ahayn nagu soo biiro, subscribe, like, share iyo comment noo reeb wixii su-aalaha. vlogan cinwaan waxaan uga dhigay siday ardayda jaamacadaha kasoo baxay ama kasoo qalin jibiyay shaqo abuuran karaan iskooda halkii ay shaqo sugayaal ka noqon lahaayeen. waqtigan hadda la jooga xaqiiqdii waxaa jiro fursado badan oo uu abuuray digitalka ayaa wuxuu abuuray fursado badan oo qofku uu shaqo ku abuuran karo. haddii aad tahay arday qalin jibiyey ama gabar qalin jibisay, qorsheynaysa ama qorsheynaya mustaqbal fog, vlogani isha ku hay. runtii vlogani waxaan ku dulmari doonaa dhowr qodob. qodobka koowaad waxaan ka dhigi doonaa maxaa loo doortaa shaqo abuurka iyo sidee loo bilaabaa shaqo abuuristu. qodobka saddexaad waxaan ka dhigi doonaa ka faa'iidaysiga digitalka. qodobka afraad waxaan ka dhigi doonaa talooyin muhiim ah oo ku saabsan qaabka shaqo loo abuuran karo iyo digitalka qaabka looga faa'iidaysan karo. ugu horreyntii, maxaa loo doortaa shaqo abuurku halkii shaqo laga raadsan lahaa, shaqo suga la noqon lahaa? maxaa loo doortaa shaqo abuuristu? faa'iidada ay leedahay waa maxay? sababta ugu weyn ee ardaydu u dooran karaan ama u doortaan inay shaqo abuur noqdaan ay noqon shaqo sugayaal waxaa ka mid ah: kow, markaad shaqo abuura noqotid, shaqada aad abuuratid, waxaad helaysaa amaba shaqooyin rasmi ah oo kooban oo aad iskaaga u maamulanaysid. rabitaan madax bannaan iyo hal abuur ayaad leedahay marka oo aad adigu abuuratid shaqada. fursado ganacsi ee sii kordhaya ayaad samayn kartaa markaad adigu iskaagu abuuratid. fursadaha ganacsi sii kordhaya markaad abuurato, suuqa digitalka ayaa marka sabab u noqonaya ama furayaba albaab cusub oo aad ku abuuri karto shaqo, ku ganacsan kartid, oo dadka kale ku shaqaaleysiin kartid. iskaaga inaad shaqo abuure u noqotid wuxuu kaa dhigayaa qof shaqo bixiye ah, isagaba company ama employer ah ayuu kaa dhigayaa. markii aad xirfadaada aad adeegsato, aad rabto inaad ku shaqaysato, shaqana abuuratid, waxaad awoodeysaa, aad noqonaysaa nin employer ah ama loo shaqeeye oo shaqo bixiye ayaad noqonaysaa mustaqbalka, halkii aad ka ahaan lahayd shaqo suge. taasna waa faa'iidada loo doorto qofku inuu shaqo iskiisu abuurto, xirfadii uu soo bartay uu ku shaqaysto. qodobka labaad, sidee marka loo bilaabaa? markaan rabo inaan wax soo bartay, soo qalin jibiyey, xirfadna aan leeyahay, sideen ku bilaabi karaa marka shaqo abuuristu? bilow xirfadda aad baratay. kow, waxaad ka bilowdaa haddii aad baratay tusaale ahaan IT haddaad baratay, waxaad bilaabi kartaa freelancing, web design ayaad bilaabi kartaa, graphic design ayaad bilaabi kartaa, programming ayaad bilaabi kartaa. intaad office samaysatid ayaad IT haddaad soo baratay, barnaamijyadan diiradda saari kartaa. freelancing, web designing, graphic designing iyo programming ayaad bilaabi karaysaa. markii aad shirkado badan, ganacsato badan ku baahan ayaa jiro
waad la shaqaysanaysaa. Markii aad bilowdo inaad shaqayso, waxaad bilaabaysaa inaad dad hire garaysid oo dad shaqaalaysiiso, adaa employer noqonaya. haddii aad baratay oo kale caafimaadka, waxaa kuu furan adeegyo wacyigelin, consultancy ama pharmacy yar ayaad samaysan kartaa. aad ku bilaabi kartaa ganacsigaaga. haddii aad baratay businesska oo kale, haddaad baratay, waxaad ku bilaabi karaysaa ganacsi online ah ayaad ku bilaabi karaysaa, waayo business ayaad soo baratay, si online ayaad ku bilaabi kartaa. waxaad samaysan kartaa qorshe ganacsi ama business plan waxaa loo yaqaanaad samaysanaysaa. waa maxay adeega marka ama badeecadaha, waa maxay adeega ama muxuu ahaa badeecadaada marka aad business samaynayso ama online ka samaynayso balaanka. markaad online balaan samaynayso, dhowr su-aalood waa inaad isweydiisaa. waa inaad horta aad weydiisaa waa maxay adeega ama badeecadayda, waa maxaan iibin rabaa anigu, waa inaad isweydiisaa. markaad balaan samaynayso, waa inaad taqaanaa waxaad iibin rabtid iyo baahida gaab ee jirta adeegaas aad bixinayso ama shaygaas aad iibinayso baahidiisa inay jirto, waa inaad qorshaysaa. qorshaha labaad waa inaad isweydiisaa waayo macaamiisha aan taarget garaynaya aan wax ka iibinayo yihiin. waa inaad garataa macaamiishaada horta. markaad badeecadaad iibinayso garato, waa inaad garataa macaamiishaada. marka intaas aad garato, su-aasha saddexaad oo isweydiinayso waxay tahay sidee lacag kusoo geli kartaa ama sidee lacag kusoo xarayn karaa. waa inaad isweydiisaa qaabkeen earning ku samayn karaa oo lacag ku heli karaa, waa inaad isweydiisaa. marka aad qorshaha samaysatid, ka bilow wax yar, si tartiib ah usii kordhi oo kubcaya ganacsiga. ha sugin wax weyn inaad ka bilowdo, in yar ayaad ka bilaabi kartaa. oo ha sugin lacag badan inaad ku bilowdo ganacsiga. ku bilow wax yar si aad intaad awoodo, kadibna sii ballaari ganacsigaaga. muhiimaddu waa starting point, waa inaad bilowdaa. qodobka saddexaad, ka faa'iidaysiga digitalka. waxaad aragtaa dhalinyaro badan, ganacsato badan ka faa'iidaysanaya digitalka, ganacsi ku samaynaya, wax walba lacag ku samaynaya ayaa jira. marka digitalkana isagana waa kaalinta kale. maanta internetka waa fursadda ugu weyn ee dunida lagu sameeyo lacag, shaqo lagu abuurto. freelancing oo kale, upwork oo kale, fiverr oo kale, iyo ganacsiyada online-ka, facebooka, tiktoka, instagramka ayaad ku baahin kartaa ganacsigaaga oo dhan. waxaad ku baahin kartaa baraha bulshada, ayaad ku baahin kartaa. waxaad noqon kartaa content creation, ayaad noqon kartaa under monetization ayaad noqon kartaa. marka online consulting ayaad noqon kartaa. marka intaasoo dariiqyo ayaa kuu furan haddii aad soo qalin jebiso. intaad iska fariisan lahayd guriga oo dhihi lahayd shaqo ayaan sugayaa ama shaqaan apply gareeyay waan sugayaa jawaabta, weli shaqo ma helin, intaad dhihi lahayd hababkan ayaad tijaabin kartaa. aqoonta aad soo baratay ayaad tijaabin kartaa si aad oo shaqo abuura u noqotid. xirfadaha digitalka waa kuwa suuqa u sahlaya ardadu inay suuqa shaqada ay galaan oo shaqo abuura noqdaan. maalgelin badanna uma baahnid, oona ha sugin maalgelin badan, in yar ayaa kugu filan ku bilowdo. talooyin muhiim ah, ha ka baqin inaad bilowdo oo wax yarna inaad ku bilowdo, ha ka baqin. bilowgana ha ka baqin. dad badan waxay ka bilaabaan starting point. bilowga ha ka baqin oo marka ugu horeyso bilow. khaldaadkana ha ka baqin oo khaldaadka ka baro, casharo ka baro. waayo khaldaadka qof aan wax khaldin wax ma saxo. khaldaadkana waxay yihiin qayb ka mid ah safarkaaga ganacsi ayay ka mid yihiin. maanta haddaad qalado beri waad saxaysaa. qof aan khaldin ma guulaysto. sidaa darteed khaldaadka waxay ka mid yihiin qayb ka mid ah safarkaaga ganacsi. la tasho mentors ama ganacsato hore la tasho. mar walba tashiga badi adoo aqoontaada kaashanaya. tashigana waa inaad sii badisaa. mentorska ganacsatada hore oo kale waa inaad fikrado weydiisaa, la tashataa dadka positive idea bixinaya oo kale. laakiin kuwa oo negativeka oo mar walba niyadda kaa dilaya oo kale, kuwaas maahan lama tashado. dadka positiveka ayaa lala tashadaa iyo mentorska. midda kale, waxaad samaysaa network xoogan samee oo connection badan samayso. dulqaad iyo joogteyn badanna waa inaad samaysataa, waayo dulqaadka iyo joogteynta waa furaha guusha mustaqbalka. marka waa inaad caqabado badan ayaad la kulmaysaa. marka caqabadaha la kulantid maahan inaad ku harta meesha oo isku diibtid. caqabadaha waa inaad ka gudubtaa
ood maaragtay hamigaaga iyo commitmentigaaga aad maaragtay sii joogtaysaa. Joogtayn markaad samayso ayaad guulaysan doontaa. xusuusnow, ganacsigu ma ahan hal maalin mid lagu gaari karo, laakiin waa safar u baahan dadaal iyo joogtayn iyo samir. marka waa inaad la timaadaa joogtayn, dadaal iyo samir waa inaad la timaadaa. ugu dambeyntii, ardada jaamacadaha ka soo baxay waxay awood u leeyihiin inay noqdaan shaqo abuurayaal halkii ay shaqo sugayaal ka noqon lahaayeen. xirfadda aad baratay waa hantidaada, waxaadna u bedeli kartaa fursad ganacsi. adaana noqonaya employer ama shaqo bixiya halkii aad ka ahaan lahayd qof shaqo suge ah oo maalin walba shaqo raadinaya. ugu dambeyntii, flogani waxaan ugu talagalay ardada soo qalin jibiya, waayo waxaan aragnaa ama maqalnaa dhowr kunoo arday oo soo qalin jibisay oona midna shaqo helin. marka waxa weeyaan waa qofka haddii aanan istaraatiijiyad loogu talagalay jirin oo lagu shaqaalaysiiyo ardada, waxaa fiican qof walba ama group ayagoo isku raacaya ayaa maaragtay ganacsiyo shaqooyin samaysan kara. qof walba meheraduu soo bartay ayaa muxuu ahaa midki kale oo saaxiibkiisa meherada kale soo bartay ka duwan way iskaabi karaan, ayagaa shaqo abuur noqon karaan, waxayna ugu shaqaysan karaan qaabka hadda aan soo sheegnay. marka waxaan rajaynayaa flogan in uu wax idin kordhiyo, khaasatan ardayda soo qalin jibisay, inayna maaragtay dhiirgelin inuu u noqdo, ayna ka faa'iidaystaan oo shaqo abuurayaal noqdaan, ayana noqon shaqo sugayaal. waxaan rajaynayaa in maaragtay wax uun idin kordhin doono vlogani, haddii aad maaragtay isleedihiin uu idin kordhiyay wax ama faa'iido idin leeyahay. waxaan rajaynayaa inaad maaragtay subscribe siisaan, like siisaan, haddii wax su-aala jiraan commentiga nagu reebtaan. mahadsanidin.